sida aad la socotiin baada saxaafadda iyo dhammaan mas'uuliyiinta shalay waxaa dalkeena si sharci darro qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu dagay diyaarad sida wafuud sida la sheegay anigu wafd waxaan u aqaanaa kii markuu ugu horeyso protocol leh kii markuu ugu horeysaba leh muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay dad doonaya suicide political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaalada Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo qatar gelin karto hawada Soomaaliya sababtoo diyaaradda hadii ay sharci darro ku socoto oo waxaga ay waayso oo qadkii dadkii dajin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo modificationka intaba laga dhumin karo oo qatar dhimasho ay ka imaan karto oo diyaarada kale ku dhici karaan ayo hawadan aad arkaysiin saacadii waxa marta muxuu ahaa halkii saac gudahooda waxa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaa hawadeen secondkii daqiiqadii saacadii marba tire intaas leeg ayaa marta marka hawo intaas oo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adigoo aan lagu hagaynin adigoo aan muxuu ahaa amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin muxuu ahaa kaawo ka qabin muxuu ahaa amar ka haysanin adiga oo muxuu ahaa dawladdii muxuu ahaa dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii aan la og yahay inaan muxuu ahaa laga hadlay oo leeyri diyaarad aan soo Muqdisho soo caga dhigan ma tagi kartid qatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadayba qatarta ay galeen iyo hawada dalka qatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas'uulnimo intaas ka weyn ma laha waayo diyaarad waa idin sheegay ku noqon maayo meeqa saacadii meeqa diyaaradood oo rakaab oo boqolaal dad sida ee hawadeena wad diyaarad aan raali laga ahayn hadii oo hawada laga xirto bas oo muxuu ahaa saadaashi laga dasado bas meeqa diyaaradood ku dhici kartaa الله سبحانه وتعالى أي ذلك أنا شلت بدبادي ودولمات ذلك أنا لو سوق هذا هوديس لو سوق هذا أي نوع أرجنا أرنتاس وحربنا الدولة الفدرال كا سدق دقة برلمان كسومالي يدمان نهاية لها يدمان بالشدة تاجرز الدولة إيو محوها قلها بدبادي من لماذا الصومالية ديك جبوينك وأنا سدق دقة أي وركو السيسا وأين ولبا صفة فسن أنور وهلنا وايو محوها قتل أنت أسكبوين ولوجو كسنكر ملها إن شاء الله شعبك جبوينك قاصة مقالة كسمايو مدبضنا يسبرايل صبركي وكذا ماذا رنتي سيدا أنا قبل أصنع قبل ماذا لكن وحان ليه إلهي رجديس لك مقوستو آدي أدبا إففالها رجده وفي عيهين عليسك إيو يقميسي الذين كوهاي الذين سو ترحيلاي ديغانكي نلرب إن الذين كبركعيو إن شاء الله وايدين كسو قارينا إن أدقك 60 أو أد سبرتين كونوا سبرتين صبرك أد سبريسين أو هذا مد إلهي أكتيس أذكر رالقرينيسين أو هذا وايو قفك إلهي رالقري أيو إلهي رالقري مركز صعبك جبوينك إنهي سفران أو أي وحيابها أي سمينايين dadka qayr mas'uulnimada caadeysanay oo sharci darrada caadeysanay waxyaabaha ay sameeyeen inayna si caragelin ayaan ka codsanaynaa insha Allah xeer ilaalinta dalka dambiya ka dhacay dalkan dambiya ka dhacay diyaarad qayr sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaa hawadeeni ku soo xad gudubtay hawadeena inta ummada ah muxuu ahaa ku safraya hawadeena qatar gelisay beesha caalamka ma aha Soomaali kale waxa la qalqal galiyay dhammaan beesha caalamka waa la qalqal galiyay imisa mas'uul imisa diyaaradood oo rayida oo hawadeena ku safraysa dadka ay wado oo nooci kala duwan oo muxuu ahaa u baahan badbaado hawadeena haday wax ku noqdaan Soomaaliya hawadeeda ayaa ceeboobi lahayd marka waxaan rabaa xeer ilaalinta arintaas inay ka soo sameeyaan sharci ay ka dhigaan ayna geeyaan dadkii mas'uuliyadaas qaadan lahaa diyaaradaas meeshii laga leeyahay iyo dalka laga leeyahay
inay si toosa ay u dacweeyaan dacwadoodana ay soo gaarsiiyaan baarlamaanka ayaan ka codsanaynaa insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin diyaaradda shalay tagtay ilaa ay hadda way fadhisaa waxaaba laga yaabaa diyaarad muxuu ahaa qaraab aheedo oo aan jadwalkii iyo caymiskii waxoo dhan laga saaray inay ahayd oo haddana ayba ka cilaadayaa laga yaabaa hadday kacdana waan arkaynaa laakiin feejignaan dheeraada ay dowladda Soomaaliya inta aan ognahay aniga aan kullee xildhibaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ka samaysay arrintaas iyada inayna khatar kale ayna gelin amisom dowladda federaalka waxay ka caawinaysaa amniga shalay waxaa lagu sacad loogu soo xadgudbay amnigii dowladda muxuu ahay dowladaha ciidamada nacaawiya ee amisom arrintaas waa inay sacad ayagana ay tala bixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ileen hawada Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya isku sharci waa kala sharci ma bariga haddii aad shabaab la dagaalamaysa diyaarad intaasoo qalqi ah oo hawadayna iyo muxuu ahay ku safraay diyaaradii qalqal gelisay shabaab waa nooga darantahay anaga shabaab waa nooga darantahay marka amisom shaqadaas ayada waa inay qabsataa oo muxuu ahay dawladda kala shaqeysaa ilaa hawada ugu dambeyn mas'uuliyiinta muxuu ahay shalay diyaaraddaas ku safray ee la yaqaan waxaan leeyahay idinkana lafihiin qataraad geliseen dalkiina khiyaano qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharciga u soo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u dalkana aad muxuu ahay cadow idinka aad ku soo hogaamisiin oo waxyeelaynin ugu dambeyn xildhibaanada shalay tagay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaan kii dalkiisa u naxa wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisii qatarta aan sheegay ee hawadeenna ee intaasoo shacab ah iyo intaasoo mas'uuliyiin ay ku safrayso shalay diyaarad koorlaay waxaa la yiraahdaa hasha geela markii koorta lagu xiro dhawaqeeda la maqlay dhay tiraahdaa koorlaay waxaa la yiraahdaa hasha aan koor lahayn oo aan haba yaraatee aan wax laga dhageysanayo aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalayto ku soo hogaamiyay dalkan qalqiga ku safraaya hawadeenna intaasoo mas'uuliyad darro xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana insha Allah arrintaas iyada waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah Soomaaliyeed inta uu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin muxuu ahaay kaligeed iska duulayso mas'uuliyad darrada ay leedahay ha ku xisaabiyo xildhibaankii oo asaga matalay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas'uuliyad darradaas inaan lagu noqonin in la ilaaliyo sharciga dalka u degan in dalkan aanan ceeb loo soo jeedin waayo waxa lagu doortay dalkan in ceebtiisa asturto in dalkan aad matalaad laba u noqoto in shacabka ku nool matalaad aad u noqoto ciidii iyo hawadiisa aad matalaad u noqoto ma aha inaad diyaarad koorlaay ah oo muxuu ahay tahriib aad hawada soo geliso intaasoo hawadeena ummadda oo ku safraysa aad qartar gelisaa sax ma aha marka xildhibaano xaal qaadii reer Juuqlaab heestii ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha Allah sharafta xildhibaannimadana meel ugu dhicimaysiino insha Allah baarlamaanka markii la furano waa la idin la xisaabtamaya waan ladii ogyahay xataa handaad kaamarada ka dhuumataan shalay xildhibaano waxaan arkay kaamarada ka dhuumanaya markay diyaaradda ka dagaayeen haddii aad kaamarada ka dhuumataan xataa waa ladii ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay istiqaali dadkan sharaf ayuu leeyahay dooni mayno sharaftayna iyo xorriyadayna iyo muxuu ahaa istiqaalada dalkayna in meel looga dhaco dooni mayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin